intii uu socday dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxa uu Maraykanku xayiraad saaray batroolka laga soo dhoofin jiray waddanka Ruushka. Ruushkuna waxa uu ka mid yahay hormuudka waddamada dhoofiya saliidda qaydhin ee laga sameeyo shidaalka aynu adeegsanno, waxaanu maalinkiiba soo saaraa 7 milyan oo foosto. Sannadkii 2021 Ruushku waxa uu Maraykanka u dhoofin jiray saliid qaydhin oo celceliskeedu yahay 209,000 oo foosto maalinkii. Cunaqabataynta uu Maraykanku saaray saliidda Ruushka waxa ay keentay inuu cirka isku shareero qiimaha shidaalka dunidu oo 30% uu kor u kaco. Haddaba, sidee ku soo bilaabantay muhiimadda shidaalku? Qarnigii 19aad waxa uu ahaa xilli ku astaysan isbeddel baaxad leh iyo horumar degdeg ah oo ka hirgalay dunida. Warshadaha xadiidka ayaa bilaabmay in ay hindisaan noocyo cusub oo agabka dhismaha ah. Waddooyinka tareennada ayaa magaalooyin badan oo dunida ah isku xidhay, waxaana loo baahday il cusub oo tamar laga helo. Daahfurkii shidaalku waxa uu horseeday horumar weyn oo dhinaca warshadaha dunida ah iyo guud ahaanba dhaqaalaha dunida. Intaasi kadib waxa loo baratamay in la helo waddamo leh kayd saliideed oo iib geli kara. Waddamo dhowr ah oo u badan waddamo Carbeed ayaa laga soo saaray saliidda qaydhin. Sannadkii 1960kii, shir ka dhacay magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq ayaa lagu aasaasay dallad ay ku midaysan yihiin waddamada saliidda shidaalka dhoofiya ee OPEC. Dalladan waxaa lagu bilaabay 5 xubnood oo keliya, kuwaasi oo kala ahaa Iiraan, Ciraaq, Kuwait, Sacuudiga iyo Venezuela. Balse hadda waxa ku jira 13 xubnood oo xilliyo kala duwan ku soo biiray. Waddamadan waxa ay ka midaysan yihiin dhoofinta saliidda qaydhin ee ku jirta waddamadooda. Sidoo kale waxa ay ka qayb qaataan soo saaridda shidaalka la isticmaalo. Sidoo kale waxaa muhiim ah in la kala saaro waddamada saliidda qaydhin ee shidaalka laga sameeyo dhoofiya, kuwaasi oo leh kayd saliid qaydhin ah, iyo waddamada habeeye ee soo saara shidaalka amaba gaasta aynu isticmaalno. Dunida shidaalka u badan waxa soo saara Maraykanka oo iyada oo saliid qaydhin ah dhoofsada. Midowga Yurub, Maraykanka iyo Shiinaha ayaa suuqa ugu weyn ee dunida dhoofsada saliidda qaydhin, kuwaasi oo macmiil u ah waddamada saliidda dhoofiya ee OPEC ku midaysan. Haddaba halkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa waddamada dhoofiya saliidda qaydhin ee ugu badan dunida. Waddanka koowaad waa dalka Sacuudiga. Boqortooyada Sacuudi Carabiya waa waddan ku yaala Khaliijka Carabta, waana waddanka ugu dhaqaalaha badan Bariga Dhexe. Sidoo kale waa waddanka 18aad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Caasimadda dalku waa Riyaad. Tirada dadka ku noolna waa 430,218,169 ruux. Waddanka Sacuudigu waa waddanka labaad ee dunida haysta kaydka ugu badan ee saliidda qaydhin, waxaana ka horreeya waddanka Venezuela. Dhaqaalaha dalkani waxa uu ku tiirsan yahay batroolka, iyada oo la qiyaaso in 63% dhaqaalaha dalku ka soo baxo batroolka. Sacuudigu waa waddanka saliidda u badan dhoofiya dunida, oo sida lagu sheegay World Factbook waxa uu maalinkii dhoofiyaa saliid dhan 6,658,442 foosto. Macmiilka u weyn ee Sacuudiga ka dhoofsada saliiddu waa waddanka Maraykanka. Waxaa sidoo kale dhoofsada saliidda Sacuudiga waddamo badan oo Eeshiyaan ah. Waddanka labaad ee adduunka dhoofiya saliidda qaydhin waa waddanka Ruushka. Ruushku waa waddan ku yaala bariga Yurub iyo waqooyiga Eeshiya. Waa waddanka ugu dhulka ballaadhan dunida. Caasimadda dalku waa Moscow. Tirada dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa 145 milyan oo ruux. Waddanku waa mid ku caan ah khayraadka dabiiciga ah, gaar ahaanna gaasta dabiiciga ah iyo saliidda qaydhin. Ruushku waa waddanka labaad ee saliidda u badan dunida dhoofiya, iyadoo uu maalinkiiba dhoofiyo 4,553,500 oo foosto. Saliidda iyo gaasta dabiiciga ah ayaa 60% ka waxa uu Ruushku dhoofiyo, sida ku xusan warbixin sannadkii 2019 la soo saaray. Cidda ugu badan ee Ruushka ka iibsata saliidda qaydhin waa Shiinaha, Midowga Yurub iyo Maraykanka. Sannadkii 2021 boqolkiiba 42 saliidda qaydhin ee Ruushka waxa iibsaday waddamada ku bahoobay Midowga Yurub. Halkan waxa aynu ka arki karnaa khasaaraha baaxadda weyn ee Ruushka soo gaadhi kara haddii Midowga Yurub joojiyo saliidda ka timaadda Ruushka oo ay helaan il ay ku beddeshaan ta Ruushka. Sidoo kale waxa adag sida Yurub uga tanaasusho saliidda Ruushka oo ah isha ugu weyn ee ay shidaal ka hesho.
waddanka saddexaad waa waddanka Ciraaq. Ciraaq waa dal Carabeed oo ku yaala galbeedka qaaradda Aasiya. Caasimadda dalku waa Baghdad. Tirada dadka ku noolna waa 40,222,503 ruux. Dhaqaalaha dalku waxa uu ku tiirsan yahay saliidda qaydhin, iyada oo boqolkiiba 95 ay saliiddu dhaqaalaha dalka ka tahay. Kadib duulaankii Maraykanka ee 2003, dhibaatooyin badan ayaa dalka soo food saaray. Dhoofinta saliidduna ma ay samata bixin dadka reer Ciraaq ee gaajada iyo barakaca gudeed la daalaadhacaya. Musuqmaasuq baahsan iyo maamulka lacagta ka soo xaroota saliidda oo aan daahfurnayn ayaa Ciraaq ka dhigay mid ka gaajoonaysa khayraadkeeda. Warbixin ay baahisay CNN ayaa sheegaysa in qiyaas ahaan $150 bilyan oo laga helay dhoofinta saliidda la lunsaday tan iyo markii uu Maraykanku galay waddanka Ciraaq. Suuqa ugu weyn ee Ciraaq u dhoofiso saliidda waa waddanka Shiinaha. Waxaa sidoo kale suuq muhiim u ah Hindiya, Koonfurta Kuuriya iyo Turkiga. Ciraaq waxa ay maalinkiiba dhoofisaa 3,428,379 foosto. Waddanka afraad waa dalka Kanada. Kanada waa waddan ku yaala waqooyiga Ameerika, waxaana xuduud la wadaaga Maraykanka. Waa waddanka labaad ee ugu dhulka ballaaran dunida. Caasimadda dalku waa Ottawa. Tirada dadka ku noolna waa 38,526,760 qof. Waa waddanka sagaalaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida, waana waddanka saddexaad ee haysta kaydka ugu badan dunida ee saliidda qaydhin. Kanada waxay haysataa boqolkiiba 13 kaydka saliidda dunida, waxaana ka horreeya oo keliya Venezuela oo haysata boqolkiiba 20 iyo Sacuudiga oo haysta boqolkiiba 18. Suuqa ugu weyn ee saliidda Kanada waa Maraykanka oo boqolkiiba 97 ka iibsada. Boqolkiiba 3 soo hadhayna waxaa ka iibsada Yurub iyo Aasiya. Kanada waxay dhoofisaa maalinkii 3,073,668 foosto. Waddanka shanaad waa waddanka Iiraan. Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan waa waddan ku yaala galbeedka Aasiya. Tirada dadka ku noolna waxay kor u dhaafayaan 83 milyan oo qof. Caasimadda dalkuna waa Tehraan. Iiraan waxa ay leedahay kayd saliid qaydhin ah oo aad u badan, iyadoo ah dalka afraad ee dunida ugu kaydka badan. Iiraan waa waddanka shanaad ee ugu dhoofinta badan saliidda qaydhin. Iiraan waxay maalinkii dhoofisaa 2,700,000 oo foosto. Shantan waddan ee dunida ugu dhoofinta badan saliidda qaydhin waxaa 3 ka mid ah ay ka tirsan yihiin dalladda OPEC, waana Sacuudiga, Ciraaq iyo Iiraan, halka labada kalena aanay ka tirsanayn OPEC. Si kastaba ha ahaatee, shidaalka caalamka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa mid sare u kacaya qiimihiisu marba marka ka sii dambaysa, iyadoo si weyn loogu aanaynayo in dagaalka Ukraine uu qayb ka yahay qiimo kaca ku yimid saliidda iyo guud ahaanba shidaalka caalamka laga adeegsado.